السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب يال واحد كسر دواتان وربحين كوبن أو بجد ديارين دونه حبيني بدني عاو. تيم كملة تيم كمجال هرجيسة تيم كمجالسة وحلا يرضى فتنس تيم كلا. تيم كنا يا طبعا تيم سهر سر اللوق لبيه أي كل عيارة مليك كل جديسي أو تشيكو ده كل ساعة أقوبسني أو أنا كورة يصل دونه بالرياضة تاسيقة أو كل عيارة يوم اللي بتوبريا شو ده حبين كني عاوة waxaan ku eegi doonaa diirada saari doonaa balqaabka lagu ciyaaro tiimka magaalada Hargeysa iyo tiimka waxa uu ka duwan yahay tiimka magaalada Hargeysa imikii haafna bal soo raac saaxiibayaal si ay u wada aragno intii inay wax wada arkaan watahay saaxiibayaal hadda waxaynu gudagaleynaa oo si rasmi ah ku gudagali doonaa oo daawan doonaa wararka tiimadaha ee magaalada Hargeysa iyo waliba tiimkii fitness tiimka وطهي هذا واحد رسمي نقول بلا ما هو برنامج كنا يلوس عني كل تيم كسر حرب ولا حرك قوات وحكم إذا إن المركز سوق لسبات كواس كسر طو واحد دونا بهالنقطان لكن أيها لقطة قريبا فليا كسر قوة وطهي كل ونودار كنا قلبي المشي له كل ولو أنشعلها إنه معلك قبتني ونوش الرحى قلبي الصل وعياره السنة ولا أركي إنه قواس كانوا حبلية كل قلبين نوعان sidoo kale kaloo mid kale mida kani isagu waa xarfilaya waa kaloo tala galay qaybaha orodka iyo caloosha lagu jiro saafilayo tiimku qalab farabadan yahay waxa jira meelo ka duwan meelahan saafilayo oo xagga sare ku yaala iyagana insha Allah waan tageynaa bal marka ugu horeysa tababaraha aynu waraysiga aan ku horeysiino tiimkii kulli macallinkii tababari xagga sare ayuu joogaa waxaan jecelahay bal inaynu macallinka halkaas sare ugu tago السلام عليكم عليكم السلام يورم على المواطن يا عم طيب ما شاء الله الحمد لله وطهي سيدي عندي هنا بيدك مقطع وحن هذا اللي تاجنا هاي وبراغ سري fitness cheap club oo ah tababaraha dhalinyartii faraha badneed ee soo arkayeen ee jimicsaneysay waa macalinka tababara ayaa magaciisa waxa la yiraahdaa Gulen Maxamed Kaahin isna wuu isku kii sheegi doonaa laakiin marka ugu horeysa macalin soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay ayaa mahad leh marka ugu horeysa marka ugu dambeysaba aad iyo aad ayaan idiga mahad celinayaa booqashadaadna soo booqateen sunaari qaybta miidiyaha walaalkay Mustafa welcome ayaan dilay soo dhawaada watahay macalin aad baad mahadsan tahay kulli kuma soo sheegin oo caaw waxaan ku kulannay jiimtan waxaan islahayn bal soo waraysta qaabka jiimamka anagoo sikadiisa ugu tagnay waana si wacan maadaama aan kula kulannay adigoo macalinkii Gulen Maxamed Kaahina macalin waxaan jeclaan lahaa bal qaabka jiimkiina uu shaqeeyay sida aad kaga duwantiin jiimamka kale ee hadal haynta dhiliyay bal inaad nooga waranto سؤال في عن although أي تاي سؤال عن مش كيجين أي تاي تيم كان فيتنس تيم كلاب وين عانوا ملاين يعني قيبها وكوكومي هاي ورنا صوّد كورميرتين هوست واحد لوجو تجي يوم وبرتي ويان العياري حاجة كوركنا واحد لوجو عيارة كارديا يو بود كا فيتنس كا تيمku waa ka macal aad baad mahadsan tahay kulay xaq oo soo ku saaragnay walow aan xaqan hada aanu galin oo aynu jecelahay labadina isku raacnay wada gallo waxaan ku weydiinayaa qaabka aad u tababartaan dhalinyartani ma qaabkii hore ma qaab waxa u tababartaan practical oo waxba daawatiisaan mise qaab adigu curuso ayaad u tababartaan walaalkay sunaari aad baad mahadsan tahay horta maanta waxaad nala kulanteen anagoo tartan aan soo abaabulnay macallimiinta fitness gym club oo arkaysaan tartankan wuxuu ku saabsan yahay adkaysiga iyo fitnesska qofku intee leg ayuu cardio-ga sameyn karaa adeega kale aan soo kordhinay baa waxa kamid ah gymamka kale aan kaga duwanahay sawirkan iga dambeeya waxa weeyaan dhalinyaradii ka aflaxday gymkan weeyaan qaarkood ay yihiin barayaal ama macallimiin wadiga arkaya sida ay u dhismeen أول كورة جيممك كله حكوا دوبنا هي واحد شراء واحد سميان صوروا تطفور إنه جانبه أيام محايد الجدار ده اللي جسوا للشيا
waanan continue waan wadaynaa si jiimamka kale annaga nala midkiina ay noogu daydaan midda kale falaadka iminka markaynu gudaha galnaad arki doontaan muraayadda waxaa jira macallimiin ajaanibo oo tusaysa dabeetana dadku ay raacayaan iyadana taa inaan meesha ka saarnaan doonaa dhallinyartan maanta tartanka aan u qabanayno inay noqdaan dhallinyarada dadka dambe ee jiimka isqori doona ay ku dayan doonaan waa tahay macallin su-aasha ugu dambaysa aan jecelahay inaan wax kaa weydiiyo waxa weeye jiimkani ma waxa ciyaara rag kaliya mise hablihiina ma way leeyihin may dumarkuna way ciyaaraan laakiin waqtiyo gaara ciyaaraan layskuma dhex ciyaaro from a subaxii ilaa 9 oo ragga ayuu xidhan yahay 9 wixii ka dambeeya dumarku soo gelayaan ilaa iyo salaada casar marka laga soo baxo salaada casar wixii ka dambeeya ayay bilaabayaan marka hadana dib u bilaabayaan tartanadan oo kalena waan joogteen doonaa iminka in ardayda ka mid ah baan u qabanay muhiimaduna waxa weeyaan inaan dadka lacagun laga qaadinay iyaga laftirkooda dib wax loogu celiyo qasdigayga ujeedada weyn waa sida weeyaan caawa insha Allah waan nala joogi doontaan ilaa tartanka bal halku ku dambeeyo aad maasantiin hagaag aad mahadsan tahay macallin maxamed guuleed maxamed kaahin macallin waxaan kala ku weydiin lahaa hablaha maadaama ay hablana ay leeyihiin waqti ay ciyaaraan hablaha si tolo ma habluma wax baraa mise iyagana raguma wax may hablaha waxa bara macallimad baa wax barta inamadana waxa bara macallimiin baa wax bara aad maasantiin hagaag ayay macluumaad mahadsan watahay saxbeel warayskiina ayaynu markan ku guda jirnaaye imikana waxaanu wax ku weydiin doonaa dhalinyarta jiimka ciyaaraya oo kala duwan waxaan jeclahay ninka biyaha cabaya ayaa filaya nasasha ayuu diyaar u yahay isaga ayaa waraysiga koowaad ka qaadaya assalaamu calaykum saaxib saaxib marka ugu horeysa magacaaga qaasim waxaan jeclahay su'aalaha kugu badin maayo kulay jiim iyo jimicsi baad meesha u timi waxaan jeclahay dhowr su'aalood inaan ku weydiiyo oo aad iga waranto balqaawka jiimkan ka dhalinyar ahaan adigu jiimka maxaad u soo gashay waxaan soo galay caafimaad inaan caafimaadka magaranaysa xoojiyo inaan badigayga dhiso lifestyle ahaan uga dhigto moogta marka wax aad u fiican dheertada waxaan ku dhiirigelinayaa inay jiimka bilaawaan si caafimaadkooga ay hore u bixiyeen waad mahadsan tahay saaxiib maxaa hayday waxa jira dhalinyar adiga kula mid ah oo iyagu balwado kala ku foogan marka adigu balwada jiimka aad kulay ku dabaqdaa noloshaada si ay jirahaan iyo caafimaad aad u dhisanto bal marka dhalinyarta kale ee balwadaha kale ku sii jeeda maxaa u soo jeedin lahaa waxaan u soo jeedin lahaa inay baasha bilaawaan way baashu aad buu fiican tahay waqti ahaan caafimaad ahaan diin ahaan wax walba si fiican bay u fiican tahay xitaa waxbarashadaadii baad ma garanaysaa aad ugu dabaqaysaa moogta saxdana aad buu soo jeedinaysaa marka waxaan ku dhiirigelinayaa inay jiimta bilaawaan waa hagaag waad mahadsan tahay saaxiib waa tahay hadda waxaanu si rasmi ah u soo galnay waa goobtii tartanka kadiska uu ka socday waxaan jecelahay midhiga laba inay iyagana dhalinyartani aan weydiino jiimarada cabdibaaso waxaa jira tartan idii socda oo caawa idii qabsoomaya tartankaasi si aanu ilo xogaala ku helnay waxa weeye tartankaasi waxaa lagu kala guulaysanaya sida loo kala adag yahay maxaad guushaasi ka filaysaa kulley caawa annaguna waanu kula joognaa shaalay inaan guulaystaan filaya hadda waxaan wadnay ilaa muddo bila ayaanu soo diyaarinay marka waxaan ka filaya caawa inaan soo hooyo guusha wallaahi horta fitnesska lagu sheegay waa caafimaad muhiimadda koowaad waxa weeye tartanku waxa weeye inaad naftaada challenge la samaysid waana ku faraxsanahay inaad challenge la dhex dhigo sababtoo ah challenge-gu wuxuu calashaan ka turjumayaa qof kasta waxa uu qaban karo marka aad baan u soo dhaweynayaa soo dhawo macna kusoo dhawaada welcome to fitness club team Hargeysa Somaliland aad baan idin soo dhaweynaynaa caawa habeen qaaliyo weeyaan waxaan noo yimid suxufiyiintii waddanka aad baan idin soo dhaweynaynaa kusoo dhawaada waan kaaga mahadcelinaa macallin qiimaha ee qaayaha la soo dhaweysay kulli waxa tahay macallin baraasarka jaamacadaha dalka halkan muddo jiimkan ayaad ka mid tahay ragga dhiganaya waxaan ku weydiin lahaa su'aasha ugu horeysa kulli caawa waxaa jira barnaamij idii gaar ah oo aad ku tartamaysaan adiga iyo saaxiibada dhigaya tartankaasi bil maxaad dareemaysaa kulley run ahaantii waan sugnay tartankan inuu dhaco muddo badan baan sugnay waxaan soo wadnay ilaa 3 toddobaad baan soo wadnay oo trainingkana la soo siinayay macnaha waxaan ka wadaa trainingka maxaa raacdaa abiska deetana shoulderska macnaha jirka dhamaantii waan la soo siinay trainingkan soo socday 3 week marka caawa waxaan rajaynaynaa in insha Allah taala ragii la kala saaro in ragga la motivate gareeyo oo ragga la kala saarana maxaa raacdaa sunnaha hanka iyo himilada qofku inuu yeesho qofku hadduu motivation waayo waxa weeyaan waa geed biyo waayo kala ku mid yahay marka waxa weeyaan in qofku waxaan ku dardaarayaa in qofku inuu dhiso jirkiisa
mentally physically psychologically ba qofku fit buu noqonayaa intuu fitness ciyaarayo aad baad mahadsantahay macallin waan kaaga mahadcelinaya waqtiga qiimaha laadna siisay su'aal kale ayaan jeclahay inaan ku weydiiyo bal fitness gym club maadaama aad macallin tahay bal maxay kaga duwan tahay jiimamka kale ee magaalada Hargeysa ku yaal waxay kaga duwan tahay dhowr arrimood bay kaga duwan tahay number 1 meesha quruxdeeda iyo caafimaadkeeda waa meel ku soo jiidanaysa number 2 kala dambeyn iyo nidaam baa jira number 3 waxay leedahay saaxiibtinimo joogto ah bay leedahay macallin iyo arday way siman yihiin waa saaxiib weeyaan waxay leedahay oo kale maxaa raacdaa qayb lagu iibiyo borotiinada oo ay iyagu soo dejiyaan haddii beedankeeda leeyahay qofka waxa la siiyaa diet gaar la siiyaa macallinkii baa jooga tababarihii baa jooga macnaha waxay kaga duwan tahay maxaa raacdaa fitness kale Hargeysa yaala waxa weeyaan xaafadda oo dhan imika iyada ku taala boqolyo ka taka xira awr jigjiga yar xataa qaybta sare ilaa idaacadda waa laga yimaadaa marka waxa weeyaan saddexda arrin qodob baan ku taabtay kaga duwan tahay jiimamka kale aad baad mahadsantahay haye guul baan ku rajaynayaa insha laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban haye bidix 1 2 3 4 5 6 7 gacmaha si fiican loo laabo kow laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban 1 2 3 4 5 lix toddoba sideed sagaal toban bod 1 2 3 midig ma joogtaa bidix wax iska cilaad kow laba afar shan lix todoba 5 6 7 8 30 second rest midig bidix kow joog haddaba halkaa joog 2 dhalinyarada aad u sii yaryar iyagoo naga raacayaan way priority u leedahay dowladda siinay dadka si dad fara badan oo kale ay ugu soo dhigtaan imaantigeega oo saacad iyo sayid ayaa training ku jirtay صاحبيال waxaan filayaa inaad ku wada bogoteen tartankaasi qiimaha lahaa ee nu soo baahineynay tartankaasi oo ku soo gabagaboobay guul ay kala gaadheen saaxiibadii wada ciyaarayay jimicsiga intaasina waxaa naga eeg barnaamijkaasi oo aanu ku soo qaadanay usbuucani jimka fitness club gym kaasi oo ahaa mid aan ugu talagalnay in aanu ku ogaano qaabka loo ciyaaro waxaan filayaa oo aad ka bogoteen waxaan leenahay
dhaafin oo habaal marin fitness club G sidaas iyo nabada